بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaamta islaamka gadaal, waxaan rabaa in aan halkan uga faa'iideysto hadal ku aadan waxa weeye saynu la socono ognahay waxa weeye dalka Soomaaliya waxaa ka jirta abaar aad iyo aad u daran oo runtii waxa weeye meel kasta oo baadiyaha gobol kasta aad iyo aad looga qaylinayo oo waxa weeye dhammaan waxa weeye xayawaanaadkii iyo waxa weeye durjoogtii iyo waxa weeye xoolo dhaqatadii aad iyo aad u rafaadisay. waxa loo baahan yahay dhammaan dadku inay isu gurmadaanin oo waxa weeye isu diirnaxaanin oo waxa weeye isu dhaqnadaanin. saa darteed waxaan ku baaqayaa dhammaan dadka walaalaha ah oo waxa weeye abaartu xoolahoodii laysay oo waxa weeye xoolahoodii ka leedeen in loo gurmado inta waxa weeye harfana waxa weeye la daba qabto oo biyo dhaamin loo sameeyo. waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala abaarta keena isaga ayaana ina ka dulqaadaya. saa darteed waxa loo baahan yahay inaan laga daalin oo waxa weeye dadka wax kasta la garab istaago, naf iyo maal in loo huro waxa weeye sidii looga soo bixin lahaa sabinkaas aad iyo aadka u adag. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa roob doon. waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala khasaa'intiisa buuxda. bini aadamku waxa weeye wax kasta uu ku taro waxa weeye waxba kuma tari karo oo waxa weeye waxba kuma siyaadin karo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa qofka qancin kara. saa darteed hadalkayga waxaan kusoo jari lahaa ummaddu hay sunnaxdo dadka walaalahooda oo dhiban oo abaartu saamaysay in loo naxo oo loo dirnaxo oo wax la taro oo wixii lagu taabi karo aan lagala hakran ayaan ku baaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi arrahmaani arrahiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد